waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka SABC oo ka imanaya xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa warkana waxaa idiin soo tabin doona aniga Cismaan Axmed Ismaana qodobada ugu waaweyn ee warka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxaa kamid ah qarax sababay khasaare culus oo isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya xukuumadda maamulka Puntland ayaa meel marisay xeerka ilaalinta af Soomaaliga oo diyaarisay wasaaradda warfaafinta Puntland taliska ciidamada Mareykanka Afrika oo qaabilsan magacooda loo soo gaabiyo Afrika ayaa ka digay halista ka iman karta qorshaha madaxweyne Trump ku doonayo in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya dowladda Faransiiska ayaa bando ku soo rogtay 9 magaalo oo ku yaala dalkaasi cabsi la xiriirta cudurka COVID-19 sidoo kale dowladda Britain ayaa soo saartay amarro cusub oo la xiriira cudurkaasi shirkadda Yahoo ayaa sheegtay in xiriirka adeegga emailka ay bulshada ku wada xiriirdo xisbiga hay'adda waddankaasi Itoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ka arisanaya xaaladda adag ee dalkaasi galay daawadayaal intaasi waa qodobadii warka haatan ku soo dhawaada isagoo fidsan